Hi guys, assalaamu calaykum. Waniga Cabditax Ibraahima halkan nagala socotaana waa Somaltech. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar yar oo kooban oo ku saabsan maxay ahayd qaabka PDF-ka hadduu password ku xidhmo aad maxay ahayd uga furi karaysid oo maxay ahayd aad u isticmaali karaysid. Markaan ku tuso qaabka waxaan u jeedo tusaale ahaan kale. Waxaan tagi doonaa halkuu yaala PDF-kaygu kadibna PDF-kan soo furi doonaa. Kadib PDF-ka markaan idhaaho ku fur Acrobat-ka waxaan ku tusi doonaa waxaan uga jeedo wuu xidhan yahay ama maxay ahayd PDF-kaagu wuu xidhan yahay. Okay, imika xagga sidaa ka arkaysid tusaale ahaan kale waxaan doonayaa buugga xaggan yaallo kale inaan reference ahaan ama maxay ahayd aan wax ka soo xigto. Markaan xaggan tago tusaale ahaan oo kale oo aan sidaa wax ka copy garayso sida PDF-ka caadiga la sameeyo aan sidaa copy dheh iima odhanayo copy. Waxyaabo kale ayuu ii soo dhigayaa si aan text-ka highlight garayo si kuwa kale looga garto iyo inaan baadho macnaha waxa uu ii sheegaas micnihiisu. Okay, marka qaabkii baan uga dhigi karayaa mid aan wax ka copy garaysan karayo aan ku tuso waxaan u jeedo. Okay, waan iska soo xidhi doonaa kan. Waxaan ku noqonayaa halkii PDF-ku igu yaalay kadib right click baan siinayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa halkii ku qoran tahay open with kadibna waxaan dooranayaa waxaad ku furtaa Google Chrome-ka. Okay, sidaad ka arkaysid Google Chrome-ka ayaa maxay ahayd la igu furayaa. Okay, marka Google Chrome-ka la igu soo furo waxaan sameynayaa Control P ayaan taabanayaa oo macnaha u taagan print. Kadib print markaan sameeyo option-ka xaggaasaan ka dooranayaa. Let's say marka hore waxay dooran in aan shayga print gareeyo. Waxyaabo kale aan ku jiro markaad print gareynaysid ma all ba mise customization waxa ku jira color-ka uu noqonayo maxay halkan waxa ku sii jira letterka nooca uu noqonayo ma A4 mise letter caadiya pageska qaabka ma isku rogba mise waa hal page waxyaabahaas ku jira. Laakiin inagu waxyaabaha maanta uma baahnin. Kaliya waxaan eegi doonaa qaabka hadduu yahay password protected uu yahay maxay ahayd PDF-kaagu qaabka aad u isticmaali karaysid wax uga qaadan karaysid oo aad password uga furi karaysid. Kadib waxaan dooranayaa halkaas soo furi doonaa ishaas. Kadib waxaan oranayaa save as PDF ahaan u save garee. Okay, kadib waxaan ku dhufanayaa save baan ku dhufanayaa. Save markaan ku dhufto waxay soo baxaya halkii aan ku save gareynayay desktop-ka weeye. Yes baan oranayaa desktop-ka igu save garee. Kadibna waan soo laabayaa. Okay, sidaad arkaysid waa la save gareeyay. Iminka waxaan eegi doonaa bal in aynu sidii hore ka duwan yahay oo aan wax ka copy garaysan karayno. Tusaale ahaan kale. Let's say waxaan tagi doonaa. Okay, waxaan tagi doonaa halka meel ka mid ah tagi doonaa. Kadib waxaan saarayaa highlight-ka ayaan saarayaa. Kadib waxaan oranayaa right click baan siinayaa. Halka maxay igu soo kordhay sidaad arkaysid copy bay igu soo kordhay. Oo taa macnaheedu waxa weeye shayga imika waan copy garaysan karayaa ama word baan ka dhigan karayaa. Sidoo kalena waxa aad samayn karaysaa oo uu ka saacidayaa in aad maxay ahayd bedeli karayso. Laakiin hadduu password protected uu yahay ma bedeli karaysid. Okay, marka haddii casharkan faa'iido ku noqday oo aad ka heshay casharkan kooban fadlan si aad casharo kuwan kale la mid ah oo ku anfaca oo ku saabsan teknolojiyada si guud aad u hesho waxaan kaa codsanayaa inaad channel-keena subscribe saarto oo aad ku soo biirto. Sidoo kale waxaan bixinaa online courses dhammaan ku saabsan maxay ahayd noocyada kala duwan courseska. Marka haddaad jeceshay kuwaas oo kalena waxaan jeclaan lahayn in aad nagu soo biirto oo aad isdiiwaan geliso. Waa mahadsantihiin dhammaantiin.